بسمك كبلا بشيدنها بركة بسم الله ملايكة بورتا جوقتها صبح دير بسم الله بسم الله بسم الله بسمك كبلا بشيدنها بركة بسم الله ملايكة بورتا جوقتها صبح دير بسم الله بسم الله بسم الله kulanti qaya badan akhyaarta hawada inaga daawanaysaay waxa aad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo ah magaalo fac weyn waxana aad ku arki doontaan barnaamijkaasi waqtigii aas-aaska magaalada ugu horeysay iyo waayihii ay soo martay iyo horumarka dhinaca dhismaha iyo ganacsiga ay ku talaabsatay Boosaaso oo ah magaalo ganacsi oo saaran xeebta gacanka cadmeed magaalada Boosaaso waa magaalo xeebeed kaabiga ku haysa badda cas waxaana magaalo madax ay u tahay gobolka Bari oo ah gobolka ugu weyn dalka Soomaaliya qiyaas ahaan waxaa ku nool daraasaad la sameeyay xilliyadii u dambeysay tirakoobka dadka Boosaaso 1,200,000 oo qof waana halbowlaha ganacsiga maamul goboleedka Puntland magaaladan ayaa leh dekad ay dooniyaha iyo maraakiibta ku soo xirtaan oo ay ku tiirsan yihiin shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolada dalka ee kala duwan waxaana u dhameystiran kaabayaasha dhaqaale ee dalka sida garoon diyaaradeed oo ku xiran duulimaadyada Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dalalka Afrika ayadoona xiriir ganacsi oo qoto dheer la leh dawladaha khaliijka waxyaabo kala duwan sida xoolaha nool maydiga ayaa la rumaysan yahay in uu kaabayaal ku barakacay gudaha dalka ee dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay ay saameeyeen waxaana dadkaasi inta ugu badan ay Boosaaso ku haystaan ganacsi iyo nabadgelyo suuban haddaanu eegno dhinaca warshadaha ku yaala Boosaaso waxaa ka mid ah warshadaha biyaha sifeeya oo ka badan 50 warshadood iyo warshadaha sharaabka samaysa kuwa soo saara dooniyaha nooca kalluumaysiga ayadoo ay magaalada Boosaaso ay ku yaaliin xafiisyada ugu waaweyn ee warshadaha kalluunka soo saara kuwaasi oo ay xaruntoodu tahay gobolka Bari iyo Sanaag inkastoo ilaha dhaqaale ay ku tiirsan tahay magaalada Boosaaso ay badan yihiin ayaa haddana ilaha ugu muhiimsan waxaa lagu tilmaamaa in uu ka mid yahay kheyraadka badda oo kalluunka ka soo baxa loo iibgeeyo caalamka qaarkood sida wadamada Carabta arintaasi ayaa muujinaysa in dad badan oo ku nool magaalada Boosaaso ay ku tiirsan yihiin kheyraadka badda hadda warshada xidig oo ah warshad dooniyaha soo saarta ama farsamaysa ayaan booqday anigoo wax ka weydiiyay sida kalluumaysatada ay ugu xiran yihiin qalabka kalluumaysiga ee warshadan ay soo saarto iyo in ay dabooli karto baahiyaha kalluumaysatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Boosaaso. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Warshada horta waxa la aasaasay 2003 baa la aasaasay waxay warshadu samaysaa gaadiid kala duwan noocyada ugu muhiimsan waxa weeye nooca la yiraahdo balbaha loo yaqaano oo 8.5 loo yiraahdo oo noocyada maartay Yemen iyo safran weeye kalluunka meelaha fog ka doona muddo ku maqnaan kara badda ilaa iyo 8 tan qaadi kara xamuul ah marka الحمد لله تقدر استعمالها كلها سكري الله استعمال واحد كلاس مثلا شدوا نوع كلا لو نوع أو كلا فتح نوع وعلى أفكار تلوي أنه هو يمن تلوسه يوعك والسجال متر
dherarkooda yahay iyo kuwa la yidhaah leyla calaawi iyaguna dheereeya labada noocba matoorada gadaal baa laga saaraayo waxaa la yidhaahaa qaarkoorda soomaalida marka horta saddexdaasaa u caansan waxyaalo kale oo dee mid la yidhaaho luula oo iyaduna xoogaa taa leylada ka weyn baa jirta noocan muxuu ahaa shabaxa qofka u baahda waa loo sameeyaa laakiin noocyada basic ah oo inta badan joogtada loo samaysto kalluumaysiga waddanka aada loogu isticmaalo saddexdaa nooca hore oo golbaha iyo afdheerta iyo leyl calaawi ayaa u badan dabcan noocyada haddaa sheegtay gaadiid badadka ay samayso warshada xidig ma jirtaa meelo kale oo ka tirsan dalka ama dibadda oo aada u eegeysaan oo aada u suuqgeysaan maya meel dalka gudihiisa waa ugu suuq geynaa wixii dalka oo dhan meeshii looga baahdo waa geynaa koonfur waa geynaa waqooyi waa geynaa goboladan iyagana waa caadi baa loo geeyaa waddanka soomaaliya meelaan la geyn waa dhif oo meelo badan oo nooga dalbaday waa geynay laakiin weli dibadda suuq dibadda ma aanan helinin hadda ka hor way jirtay qolo suudaan hay-adda faw ay yidhaaheen waxaan u sameynaa suudaan baan u sameynaa ma geynaysaan oo waa howlgeyn karaa wanil laakiin qandaraaskiina ma aynan siinin kuma aanan guulaysan laakiin haddii loo baahdo dibaddana waan geyn karaa oo innaga doonyaha aan sameyno yani caalamiyan injineero waaweyn oo adduunka yani ka jeegareeya laashashka baa loo yimid oo jeegareeyey oo faw way soo dirsatay safra jildareen qaaray soo dirsatay badan injineeraha waaweyn oo adduunka swedish iyo maaragtay ingiriiska iyo kenya ayaa kontaroolay marka annaga yani waa ku guulaysanay xagga quality-ga nooca ugu sarreeya oo laga isticmaalo waddanka iyo inta xataa dibadda qaarkii waa la yaalan waxay noocan ugu sameeya soomaaliya malahay aad bay intay u dhacan yihiin marka noocyadaas waddanka gudihiisa waa ku faafinay laakiin dibadda weli ma hagaagin وهاي طبعا جديدك نوعين هذا السنسان كشقية gobolka bari oo gobolka ugu baxay waa Soomaaliya waxa kala soo xamaha weyn oo kaleediyaha oo asaysan oo xafada magaalada dadweynaha dalka iyo gobolada dalka la leeyahay kuwaas inta ha iyaga waxyaalaha kala soo raaca oo sawirno warshad wax kamid ah hamaha biyaha oo nooc kasta kuwa waaweyn kuwa dhexe kuwa yaryar ayagana aad hadda loo bartay oo laga reestay kuwa caaga ah kuwa caaga ah waxa weeye laakiin kuwa fiber glassku haddii wax gaaraan waa la kabi karaa si sahlan baa loogu kabi karaa marka waxaan kala sameynaa sidoo kale waxaan sameynaa baalaha kalluunka lagu qaboojiyo oo isboksida loo yaqaano sanduuqyadan barafka la geliyo oo nooc kasta iyagoo dhowr tana waanu sameynaa ayagoo yaryar ayagoo dhexe iyagana sidoo kale aad baan u sameynaa waxaan kala sameynaa doonyaha waaweyn oo dibadahaas u qaada matalan khaliijka iyo yeman iyo oo waxaan u sameynaa iyagana talaagado gudaha oo doonyaha gudahooda ku sameynaa talaagado ku sameynaa marka nooc kasta oo fiber glass kuwa kalluun lagu kaydiyo iyo kuwa baraf lagu kaydiyo iyo kuwa transport oo wax lagu qaado intaba waa sugiyaa وهاي قلب كلا سمي الدنيا هاسي كلمة شتى يحماها محيي مقابل بلاد الفلوسية يعني سواء قلب عدل بدي كاستنقاب ما حوي قلب كلا سمي وقلب عيرين وكم كالسة مركب قلب كعيرين دبده مكاننا وقلب لسكوت الدرو وده كان لقيه سيد بدر وقلب معناها كم كالسة بادروليوم كأهو درولك كهرة kuwaas baa laga sameeyaa noocyo kala duwan marka dibadda ka keenaa waxa magaalada Boosaaso waa magaalo xeebeed dabcan aad ugu caan ah dhinaca kalluunka iyo soo saarka kheyraadka badda maadaama warshadani kalluunka warshadani dunyaha ay ku taal magaalada Boosaaso qaab sidee ay waxay uga qaataa kalluumaysiga gobolka bari aad bay uga qaataa anagu halkan
waxa weeye waa berigii sunaamida dhacday baana bulshadeeda aada loo bartay oo sunaamida 200 oo dowlad baan u sameynay ololka sunaamida oo kuwaas Siiriyada iyo kuwa Warundi isku jira marka kalluumaysatada gobolladani aad bay ugu xareeyeen warshada ama dayactir ha noqoto ama mid cusub ka qaataan ha noqoto ama waxa weeye ay nooc xataa isbeer baartiga u keenaa dooyaha ay motorada u keenaa dooyaha motorada isbeer baartiga waxna u keenaa ka aad bay kalluumaysatada uga faa'iideystaan warshada oo ugu raysteen maanta waxyaalaha ay dibadda ugu xaraan jireen oo badan ka mari jireen aad bay ugu raysteen وقت هذا حلقان انت بدن سلام صنع gudaha dalka ma jirto doonya hashiyar yar oo dibadda laga soo iibsado oo ka shaqeeya gudaha dalka inta badan waxa aan oranaa dooyaha ay sameeyso warshada xidig oo ka dhex shaqeeya xeebta Boosaaso iyo xeebaha kale ee gobolka bari ku teeray marka ma jirta meel kale oo aad xarun ku leeyihiin dalka Soomaaliya sida la socono waa dad aad u xidheer oo deegaano fara badan xeeb ku leh oo meel kale oo warshaddan ahayna warshad kale xidig oo ka jirta dalka ma jirta oo samaysa hay'adda dooyaha maya dowladda xarunteedu waa halkaan Boosaaso kaliya weeye laakiin meeshii loo baahdo waanu geynaa qalabka waanu geynaa meeshii looga baahdo dalka oo waanu geynaa laakiin xarun ahaan halkaana xarun noo ah وقت كور منك أن نناقش شقدينا قبس هاي تحليل نقول صوتها. شقدي waxay ku xiran tahay inuu kalluumaysatada ku xiranaayo marka kalluunku uu fiican yahay kalluun fiican la helana shaqadu waa fiican marka kalluunku yaraadana waxa weeye shaqadu way yaraataa inuu kalluumaysatada ku xiran waxay duniyahan markaan ka soo gudubno ama waxa jira waaweyn oo biyaha lagu kaydiyo oo ay bulshada isticmaasho oo inta badan dabcan sidoo kale waxaa loo dhareystay baraagihii dadka qaban jiray ka waran haamahaasi nidaam noocee baad ku gaarsiisaan dalka haamaha waanu gaarsiinaa dalka intii koonfur waa loo qaataa gobollada Puntland waa loo qaataa gobollada Soomaaliland waa loo qaataa waxa weeye qof walbaana haanta mid weyn mid dhexe mid yar nooca rabu naga dalbadaa marka haamahaas aad baa maaragtay loogu nafsa iyagana haamahan awal bugtahay dadka guryahana kuwa la saaro guryaha waxa bariga hore shibinta barkada shibinta lagu duldhisi jiray markaas ay dilaacayaan markaas qarash badan waa geli jiray hadda waa laga raystay haantaas iska saaranaysaa adigu intaad nooshahay waxa weeye waa jiraysaa haddii wax gaaraan wax ku dhacaanna waa la dayactiri karaa si sahlan marka waanu gaarsiinaa intii ka hortaya mustaqbalka maxaad rajaynaysaan warshaddan xidig oo warshaddan dooyaha kala duwan dabcan haamaha inaad sii gaarsiisaan mustaqbalka insha Allah waxaan rajaynaynaa inay sii ballaaranto warshaddu dalkana ma gaarto wax soo saarkeedu sii kobco taariikh ahaan magaalada Boosaaso waa magaalo la soo booqan jiray boqolaal sano ka hor waxaana magacii horay ee loo aqoon jiray ay ahayd Bender Qaasim oo loogu magac daray ninkii ugu horeeyay ee helay magaalada Boosaaso Xuseen Gacayta Xuseen oo ah waayo arag muddo badan u soo joogay magaalada Boosaaso wax badan kala socday taariikhda magaalada Boosaaso ayaan weydiiyay sidii ay ku bilaabatay horumarka ay gaartay iyo qaabkii ay ugu soo gashay magaalada tan Boosaaso ويجي تاريخ ده أي صوم مرتين وصاصو هي والله يحب أما غلا يعلم وهي التاريخ لما بقول الجنين بريد القرآن صدقكم الكوارث مع بلاد الشيء هذه في سيدي يوسف بن الوزير وأخذوها وكذا إن شاء الله لكن تاريخ مرم في الدليل ملابتين آسي وحيلتين إذا يسمون المجتمع كان وقت وقتان وعلى هذا عمل أريد جيرتينيا أنا هو أمريكا ليش جدا ما جيسي جيرتينيا مركي لو يرهنا waxay wadaltahay waa harti
marka nin walba wuxuu ahaa meeshuu ka magaratay ka shaqaysan karo ama degan yahay ama ka ganacsan karo iyo khiyaarka isaga degay ma ahayn wax dawladisay iyo toombaleen iyo wax la sameeyey ma jirin صح boosaaso waxa u horreeyey uu degay nin la oran jiray qaasim قاسم qaasim nin la oran jiray yaa bilaabay dagaalkeeda qaasim waxaa nin hanti ka mid ah hantiya inaba hanti markii laga soo tago axmed hantiya waxaa uu ka ahaa axmed hanti kabtaan halka kan uu degay wuxuu ahaa nin magaratay geelna wuu ku haystay macnaa badda iyo shaqadeena waxbuu ku haynayn kow ninkaasaa meesha ka degay saakaanigu ku hayo qaasim waxaa laga raacay magaciisii meesha la yidhaahdo qaasim u yaqaanin carabta qaasim yani magaaladii qaasim marka niman carab u yimaada carabta u timaada yaa isku waraysta markii la xaggee ka timaadeen waxaanu ka nimaadnaa badar qaasim magaalada qaasim baa qaasim baa ka nimid magaalada magac malahay magac malahay صح magaaladii qaasim baanu ka nimid isku waraysta boosaaso meeshay ka timi waxay tahay hashiisii isagu meesha ku haystay geelu meesha ku haystay صح hal ka mid ah oo ilaa dheer waa kala mashuursan yahay u magac dheer hasha waxaa la oran jiray boosaas hasha uu isaga lahaa waxaa la oran jiray boosaas boosaas waa gartay marka boosaasana waa hasha magaceedii qaasim badar qaasimna waa magaceedii magaaladii qaasim waa magaciisa saas waa tu bilaabatay guud ahaanba magaca boosaasay kusoo bilaabatay boosaasay ku bilaabatay carabtiina waxay u yaqaaneen badar qaasim صح soomaaliduna waxay u yaqaaneen boosaas oo waa hashii waa isaga lahaa هذه horta saa taariikhda ku maqlaysaa wey laakiin axyaanan anagu ma arkin joog ma ahay marka صح soomaalida taariikhdeedu waa sheeko waqtigaasi xilligan ku bagnay waqtigaas waxay noqon kartaa 300 iyo konton sano xilligii aan gumaystay yaa xilligii gumaystay waxaan gumaystay markii boqor baa haysta meesha boqor baa xilligan ka haystay wadanka la ko xilligii dalka boqorada u tagay meel kastaba boqor baa joogay waa markii uu joogay in cabdulla xasan matalan waa xilliyada yani hortiisii bay u jirtaa magaalada marka berbera asaasay iyo boosaasay usu taariikhda xilligaas marka boosaas la asaasay deegaankeeda wargay haddii meesha la deganaa dee boqor baa dalka u taliya marka dhulku waa hortiba weeye ma aha jamhuuradii talyaani ma joogo talyaani ba dalka usoo isuma joogay tan waxaa ka horeeyay marka magaal macaad la yidhahdo halka waxaa ka taariikhdeeda ka horeysay oo iminka laga soo jirta loogu soo joogo halkaa haddii ahayd wixii ka dambeeyna haddii sidii hadba qolo u imanayso loo imanayo waa lasoo imanay magaalay ku noqota taladana waxaa iska lahaa tala boqortimo boqor baa lahaa qortimo daarood boqorkiisa waa soo degaysaa saldada marba nima qabsanaya صح laakiin reerka degana waa daarood يعني دارون هذه اللي نصدق حاطين شو قال سلاسل قرارتي طب إنها إلى تاريخ راسلات إلى السماء في متجاري لما إنجلس وجد فيه إلى يبدو قدروا إلى أي جمهورية صوبان وصوبان ساسو وجدت مركا مقالة بوساسو ما أنت تشوفنا عاد كأقرب لقبل سنة muddo badan la soo jirtay sida tuluusis waayihii xilligii dowladda dhexe ee Soomaaliya oo qabadkeedii waxyaabihii ay keedkiisa oo kale dowladda gacanka iyo dabcan xilligii ay burburtay
nidaamka ay ku dhisatay oo ay ku bilaabatay taas waxaa ka horeeya waxaan ka soo sheegaynay boqortimo ayay ahayd baabuur sax boqortimadii waxaa yimi talyaani boqor cismaan boqorkii la oran jiray isagoo u taliya oo u dambeeyey boqorada intii aan yani ay madax bannaanaayeen waana isticmaalka gelin u dambeeyey sax intii dhulka la isugu yimi oo ama talyaaniyimi ama ingiriisiga dibwado waa badnaayeen hadda lama daalo doorto oo la socda burhaan baabaanta ugu dambeeya u boqor marka intaas isticmaalku jiray hadda boqorada suldad iyaga u khaasa ma lahayne waxay ahayd taxta alxamaaya bay ahayd waan isbedeli allahuma salli calaa maxamed marka boqortimadii haddii ay boqorkii la qabtay oo isticmaalka dhulka yimi talyaani baa soo degay 25 buu yimaanay boosaaso 25 magaalada boqorka wuxuu yimi ka soo degay u horeeyey kow magaalada aan ku sheegay oo bacaad la yidhaahdo ayuu horayii hore ka soo degay dabadeedna xamar buu ugu horreeyey dabadeedna har wuxuu ka soo degay magaaratay bacaad xaafuun buu ka soo degay tanuu ugu dambeeyey markaa intii ka dambaysay isticmaar bay ahayd 10 sannadood isticmaalkii baa soo galay talyaanigiisa waqtigiisu ka qaatay dabadeed talyaani waa la jabiyey ingiriisiyo dagaalkii waa dhacay labaad aakhirkiisii waxaa soo noqday talyaani 10 sannadood buu isaguna joogay waa la socotaan wuxuu soo galay kontonkii 60kiina waa laga qabsaday oo soomaalida istiqlaalkii bay heshay على صور ما بين نحن كون أهل دلتاي من إلى هنا بيس تبغى أنت كنا ما يشاهدين يقول الصومال بهاي يقول الصومال لكن وحنا قبل وحلقة قبل المغاريو مجاري وحنا مهين محمد سيان بري هاي جنبي كل الناس تو وحوسبيي ذلك نكاس وحنا قبل ولما هوي هي حمر وصفي أو وقت منادق النيران ذلك كان لي أوريجي من جتني أما وساسي أجار كذا طريقاس من كذا بكسوغان واحد من أهم بكسوغان ولما مركي ورتوا على جبري أو ورتني مركي آخر تبون دبي طبعا يا غدي وسبيي كذا سبيي يتكاس يقدروا وصولوا أهمية وين وحيد قطعي مركي لصو دولتي دحم قطعي وماش دغال كدعي dadkii awal u yaacay banaadir iyo dhulkaa jiray baa dib u soo noqon markaasay magaalo noqotay runtii waxay ahayd wax dheeryar oo qaryada magaalo si iska yar bay ahayd aad u fiican oo magaratay laga gacsano magaalada gacsi oo gaadiid leh oo badda iyo cadan iyo magaratay dhulka carabta oo dhan ku xiray wadamada ay xuduudka la leedahay hadda magaaladana wadamada ay xuduudka la leedahay baddaas waxay xuduud la leedahay markaad xagga carabteeda marka ganacsiga ugu badan ee maxaa boosaaso yimaada oo inta badan soo gaara waa wadamadan carabta ee dariskana wadamada carabta oo dariskana ah markii horeeto waxa lagu xiraa cadan iyo kulli basharayna sax cadan waxa laga ganacsan jiray badeecada garatay madoori oo misalan wixii cunto ahna waxaa laga soo qaadan jiray cadan wixii laga soo saaro dalkana waxaa la gudbiyay cadan waxaa la geyn jiray beeyada waxaa la geyn jiray beyniga waxaa la geyn jiray kalluunka waxaa la geyn jiray xabkaha waxaa la geyn jiray maxaa qorada xatabka waxaa la geyn jiray waaka kulli iyo cadan kulli wax yar baa la geyn jiray oo عود واحد بيجي جد عود يراهده أو بار أو وش على سبيه وهذا الجريد من الناس هذا لو بنورا دبي أهم بهذا وخجنا من وحير ما هاي ندخل نقول كلام بلاي وهذا على سبيه وهذا واحد لقيا عرفته كلو في حد حديد كه مقرتين لقى كل واحد لقيه هو أرجع نوم وحين بدأ عدا وعدت أنا يغلى شغل ساسا لوش بيجري
عند روح الراء ودولة نما هوشين يوحد wax kalmaad socoraya in isdila kara iyo isqabsi ku jira waxa ku jira nolosha la waray magaalada hadda Boosaaso aan joogno waa xaruntii ganacsiga Puntland oo ah xaruntii gobolka Bari oo halbowlo ah ama magaalo madax u ah gobolka ugu weyn dalka Soomaaliya طبعا way badan bay soo martay xilligii Bandar Qaasim oo soo degay xilligii dawladii kacaanka ee militariga ahayd xilligii dalku burburay oo طبعا ay noqotay xilli meesha ugu ganacsiga badan Soomaaliya oo ay noqotay meesha ugu dhismaha dhow waqtiyadii dawladdu ay dhacday طبعا maxaa ka dhiman baa soo kartaa waxyaabaha caanka ku tahay magaalada marka magaalada waxay caan ku tahay ganacsi weyn bad bay ku tahay bad يعني واحد magaalada xeebtaan waxay ganacsi yani wax kasta oo loo baahan yahay meel laga helo wey carabta looga baahan yahay carabta looga baahan yahay waa la keeni karaa wixii Soomaaliyeed waa laga saari karaa laakiin waxa weeye dadkii shaqaysan jiray oo shaqada si fiican u yidhiin waxaan moodaa inuu dadkii hore meesha ka baxay dad u jeeda dawlad inuu ka hela keliya joogaan maanta waqtiga baad waxaa la doonayaa masalan wax yar intaan laba nin ama nin wax ku sira doorashadiisa in 5 kulood qof soo taagtay nin walba yidhaahdo doorashadii baa rabaa madaxweyne dowladnimadii dhinaca fursad saar ماشي همين هاجتي جراسي هاجتي صدق غيره وحقصه وحرصه هاجتي واحد وجه ما تين حاجة لوجه للدولة إلا جرب الدولة ده وحول بين قبضته إلا الروائل الدولة وحول مصوصاته الدولة إلى أمها الدولة الأول إلى يجرب بيدخلتها يعني أول واحد هي طفقوا قبصه وحلا هاجتي لكن ما أنت واحد مدة إلى وقتوا إلى الواحد دولة كريم إلى الهادي كريم والدولة هذه مش كبعد هنا حول قصة حلو حول قصة لكن سومالو وادتر الجوراء أو رفض أبور كهذه يقالنا إن هذا شقيستان أو مجالات جناسية الشقاوة تسعى ويقانين هدر وتشفي عبي وشغير يعني لكن أهمية قوي وماش كل جرتا واحد هاي اسكو كلسوري بيدت اسكو كلسورة ما باش كمجال كل كلسوري واحد جرتا إنه ولا من يجراه وجهه حق الدولة يعني أهمية به يكون وجه الدولة وجهها. سياسة دي بقى معنا واحد مودا وحكوا عصوبة كده. واحد عصوبة هذا واحد سيء. واحد عصوبة يا صوت بني آدم يكون سيء وأكون يعني يا مثلا. أما واحد ما هنتهي إن سياسي أو سياسي جراسي أو جراسي يعني شغالة الموضوع يعني لك على هروي لك على هرو كل قيم شغل طيب شباب بشرين بس بشرين السياسة كل شيء غير وجود ورجع نقطة هذا مجالنا بوساسو مجا هرا لوجو أقول شيء ودوس الشتوى بندر قاسم أو حلي اللي هذا مجالنا بوساسو عن كتاي مجالنا كابياش هذا أقالنا وذكر مجالنا بوساسو مجالات درس لا ودمنا عربت لك حاجة مركا مجالات حيابها طبعا وقبل بدلتها مجالات كلا سوماليا وامح بدي وقبل بدلتها وحين أولو ده مثلا ماشي لوك عرب يمن بيت يدا أنت يعني بحر أحمر ريناه بحر أحمر جيبوتي بربرة بوساسو هذولا يعني أنت سوى بدعس مركب وخير وأنت ومن فوق أول مركب بدر ومن يعني أبو يروي magaalada Boosaaso dad badan oo Soomaaliyeed oo dawladda iyo dalkaba ku nool ayaa jira oo aan arag Boosaaso marka ay maqlaan sawirro dabcan qof walba binaadam aan sawir ku haysan karaa Boosaaso qofkan arag maanta sawir noocee baad ka siin lahayd Boosaaso waxaan ka siin lahayd Boosaaso waa meel lagu wada noolaan karo meel aan suri lahayn oo dadka magaalada la fuugo معين وحوشي وبعد ورقتها سوالي مركز تسوقه واحد أكيسا لما يكون عف وكلام الدلال والسوالي هاي يعني كل شيء يسوي
مثلا قرب ما جوتا حبشي ما جوتا كي أمريكا ورد بطلق ساعة هذا يكسر ما جوتا عرفت اليمنية هي سوق يا عيسى حتى أمر هي تتواجد قرب ومجال الفدريشن عيد والبيت وأنا مجال دبعة وحلا ركرا مك حضارة أنت بعد سلا عنده ضدك تجري وضدك سود ويجر وأنا قول ضدك إنه إلا والله قبضه لكن تاسو حكايتي إن ضد بدروا أسوديان كسر بطان تاسو الله مبارك حكوا إيه وأنا وقت أبد شو قال حلو بهاي إن حكوا الله له حكوا كرامة ندخل السود كليه ولا بهاي كلمات ولا بهاي لكن بريء هوري حب بيتين ولا مواهبريا ومريا مثلا waxay ka imanayaan Kuwait ama waxay ka imanayaan Iran ama waxay ka imanayaan Hindiya waxay u baahan yihiin biqaadanayaan waxay qaadanayaan biyada waxay qaadanayaan Salmaanka waxay qaadanayaan hadii la waxa loo xidoona biqaadanayaan nin walba nin ku soo degaya wax taabanayaan ma jira dil iyo qarax iyo waxa soo loo kabayaan hadda magaalada Boosaaso magaalo aad u kala waxay ka kooban tahay 16 xaafadood iyo 35 kaam dadka barakayaasha ay degan yihiin طبعا halkaas waxa kaga soo baxay magaalada inay magaalo aad u ballaaran marka loo fiirsho magaalooyin kale dalka marka laga reebo labada magaalo madaxda ee magaalada kale magaalada Boosaaso gobolada kale ee dalka Soomaaliya oo magaalada ugu baaxadda weyn ee ugu ballaaran ee ugu dhismaha badan waqtiga dambe طبعا dad fara badan oo ku nool waxaa marka la is oran karaa way ka dhiman tahay oo wala magaalada maanta in lagu kordhiyo hadii ahaan la dhinaca bilicda dhinaca horumarinta bulshada dhinaca dawladda magaalada waxaa ka dhiman halmowlayaashii kaabayaasha ahaa u xoog badan waa dhibay waxaa ka dhiman airport waa dhisay yahay laakiin ma gaarkii iyo railwaygii midna ma laha taas horta waa kow waxaa ka dhiman deked weyn oo munaasib u ah magaalada dekeddaani waa deked yar waa deked dooyaha iyo kalluumaysu laakiin dekedihii maraakiibtu geli jiray oo tuulada la keenayeen alaabtu yani waa ka dhiman tahay waana sugaynaa insha allah dhinaca wadooyin ma leh wadooyin hadday leedahana waa wax yar oo garanayaan lama isku dhaafay xilligan waxaa laga wadaa wadooyinka dhismayaal baa laga wadaa ilaamiyaal waa balaabatay insha allah waan rajaynaynaa inay noqoto in toon balaan la gaaro oo la wasiiciyo oo la dhex galo magaalada oo si tartiiba oo magaratay nidaam ah loo wado dowladnimo aad bay ugu baahan waa hagaag haddaanu eegno dhinaca waxbarashada iyo jaamacadaha ku yaala Boosaaso iyo dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Boosaaso ayaa waxa ay gaarayaan ilaa 6 jaamacadood iyo in ka badan dhowr iyo 10 dugsi sare oo ay wax ka bartaan ardayda ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo kuwa kale ee ka yimaada gobolada dalka magaalada Boosaaso waxa ay leedahay xabsi weyn oo dayactir ballaaran lagu sameeyay waxaana ku xiran eedeysanayaal kala duwan oo maxkamadaha Puntland ay ku kala xukumeen sanado iyo xabsi daa'in kuwaasoo lagu soo eedeeyay falal isugu jira argagixisanimo iyo falal la xiriira burcadbadeednimo oo ka mid ah kaabayaasha dhaqaale ee dalku leeyahay waxaana ay Boosaaso leedahay cisbitaalka guud ee Bandar Qaasim Hospital oo ah cisbitaalka ay dawladdu maamusho iyo hay'adaha caafimaadka jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa waxaana ku yaala magaalada Boosaaso cisbitaallo gaar loo leeyahay oo u shaqeeya bulshada waa hagaag daawadayaal barnaamijkan aynu ku eegno magaaladan Boosaaso taariikhdeeda ayaa waxa aad ku arki doontaa qaybo badan ay ka kooban tahay magaaladan Boosaaso waxaana ay sidoo kale caan ku tahay magaaladan Boosaaso goobo ay bulshada ku dhaqan Boosaaso iyo qurba joogta magaalada ay yimaada ay u dalxiis tagaan oo kala ah biyo kulule iyo laag oo ah meelaha loo dalxiis tago waqtiyada munaasabadaha ciidda biyo kulule waxa ay daawo u tahay dhinaca lafaha sida la sheegayna hobalada Soomaalida ay ku amaanaan heesahooda goobta taariikhiga ee biyo kulule
haddaynu aynu magaalada boosaaso dhinaca ammaanka waxaa si weyn uga qayb qaata ciidamada BNBF oo ah ciidamada badda Puntland oo degan duleedka waqooyi ee magaalada boosaaso waxaana ciidamadaasi ay si weyn uga qayb qaataan sugidda ammaanka magaalada boosaaso magaalada boosaaso ayaa waxa ay tahay magaalo taariikh fog leh waana xarunta ganacsiga Puntland oo ah magaalada ugu badan ee isha dhaqaale ay ka soo xarooto waxaan daawadeyaal intaasaan ku soo afmeerinaa barnaamijkii aanu ku eegayna magaalada boosaaso iyo waayihii ay soo jirtay barnaamijkan oo idinka imaanaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaana barnaamijka soo jeedinaya aniga Axmed Naasir Maxamed Xasan dhinaca kaamirada waxaa iga caawiyay mahadiya ka gaartay saaxiibka Jagni waxaan u mahadcelinayaa Xuseen Gacayte Xuseen ما بغير بيلات كتمت